magacaygu waxaan lahaa ayaan shirkaaga dal waxaana ka imid deegaanka Gurceel gobolkaas baan u dhashay gobolkaas baadiyihiisaan ku koray oon ku barbaaray beerkanaga maxaan ku rabeer iska reer miyi oo maxaan ku rahaa iska tabar daran waay marka aabbahay xoolihiisa marka waqtigiisii horeeto reer xoolo labay ahaan xoolahooda waa la dhacay maxaan ku rahaa aabbahay ilmihiisa horaa loo laayay marka aniga xanuunkaas markaan soo hana qaaday oo igu dhacay meeqa sano jirtay markaa camal markaas waxaan jiray da'da 17 meelahaas 17 sano ilaa 16 marka nin baan guursaday ninkii markaan guursaday 2005 bay ahayd ilmaan qaaday ilmihii markay 3 bilood yihiin bay iga soo dulmeen haddana sanadkii dhexdiisa markii taur kalan qaaday ilmihii way iga soo dulmeen jirkii baa isbedel weyn aan dareemay xanuun ah xanuunkaas waxa waa jirkii dhan oo idibaaxiyay jirkii iska bedelay culays fara badan xanuun fara badan ilaa ciribta ilaa madaxa oo jirkii macnaa dibaax baan ka dareemayaa dhiig caadada oo dumarka ku dhacay iska bedelay meeshii aan dhiig arki jiray waxaan ka arkay biyo iyo wax oo maan dhiig sax aan ahayn kadib haddana waxa iga soo baxay gar 2006 ilaa muddadaas xanuunkaas muddo dheer buu iska watay ay 3 sano markuu ninkii qabo xooray waa isbedeshay naag baa nin baad noqotay marka aniga qof dumar ah u baahan oo ilmo iyo taran aan ka helo saas daraadeed aniga qof qabi karta maahi nin baad noqotay waa isbedeshay mana isxamil karna waa iska ka furaya diyaar baan ilaahay ba qadartan ay keenay ma hadda iska furta wax dhib ma lahan baa sidii baan ku kala tagnay oo iska xanuunsanaa jiray sidii baan ku joogay haddana mar kale baan nin guursaday anigoo si u xanuunsan ninkii haddana isla markiiba waa iga carar wuxuu yiri nin naagna baa tahay aniga naag baan mudo waan ku qaldamay baa midabta kooray oo xanuun dhagax tuur iyo wax maxaan ku raaday aniga markaas aan ku qanacsanayn ma bulshada dhexdeeda kala kulmay islaan dhaqtarada baan la kulmay waxaan xanuunkan baan isku arkay waxaana maxay tahay adaa dhaqtarada waxay tiri waxa keen hormoons qaldama keen dibadana maxaan ku raay meeshan waxba loogama qaban karo ee dibad ma aadi kartaa waxa ay aniga reerkana waxaan waa reer iska tabar yar dibadna iyo ma diri karaan maxaad ugu la talin lahayd aniga dibad baan kugu la talin lahayd haddii aad awoodaada leedahay dadkii baan la fistay waxaa la yiri hay'adahan qaxootiga iyo meelahaas iska aad baa leedahay qaxootigan soo aaday markan qaxootiga imanna xaqarbeer baan ku soo degay nin abtiga degan ninkii markan ku soo degay abtiga wuxuu yiri wuxuu i karkaar markaas ma soconine wuxuu i keenay dhagaxley marka imid adii kaar hore kama helin maxaan ku raayay blog aan ku noolaaba bulshada dhan baa hal mar isku kacday xaalay naagnina timi dhagaxley dhagax tuur maxaan ku raayay waxyaabo tira badan fayl la ii soo galay aniga dhan dhagax tuur miyaa istaagan waay hay'adda MSF warkayga maqashay waxay igu tin blogii aan deganaa blog aan ku soo degay oo waqtiga ay keenay hay'addii way qaado baawurba ii kan istaalka la geeyay form baa la igu buuxiyay isla markii waxa la geeyay xawaajibay computer baa la isaaray isbedel weyn baa ku hayay waa la qaad isla markiiba MSF iyo hel cross oo isla socda ay qaadeen waxa la geeyay istaalka gaariso marka computer la isaaray haddana Nairobi baa la igu soo baaray waxa la yiri nin iyo naag baa tahay waxaan ku raadayay waa makaankaaga meesha taashi tarankan waxba kaaga go'an baa marka saas daraadeed way soo celisay hay'adda MSF iyo waa la keenay MSF baa la keenay MSF way soo celisay marka ay soo celisayna waxa la dhahay waxba lagama qaban karo wadankan saas daraadeed waxaan ku gudbinaynaa UNHCR qof raga lama noolaan karo qof dumar ah lama noolaan karo marka qof waxaan ahay nolosheeda ciriiri ku jirto mustaqbalkeedana oo mugdi galay oo haddii jidka maraya waxa la leeyahay waa tii naag tahay mar waxa la leeyahay waa tii ninka ahay dhagax tuur iyo dagaal maxaan ku rafaad badan ma kala kulma bulshada dhexdeeda
dadka walaalaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ummadda islaamka inta danqanaysa waxaan ka codsanayaa in macnaha gargaar oo caafimaadka la ii fidiyo maadaama aan ahay qof dhibaataysan oo aan awoodin inaan dibad aado xanuunkayguna uu daawo leeyahay daawadiisana ay wadankan u leeyahay baan codsanayaa marka waxaan codsanayaa walaalaha mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan ku celinayaa mustaqbalkaygan mugdiga galay in mugdiga laga saaro oo maxaan ku dhahay noloshayda ciriiriga in ciriiriga laga saaro ilaahay baa ciriiriga iga saari kara waxaan codsanayaa